walaal degmada waa joognaa degmada maamulka Somaliland ariyahan dambe waa ku soo xoogaysanaya annagana caqabadahan haysta waxa weeye back up haysta oo dalada laga riixayo oo dhaqaalihiisii wata oo gaadiidkiisii wata oo shaqaalihiisii oo dhammaystiran wata oo xarumihiisii dawlad maamul daadejin iyo degmo ahaan iyo gobolka ahaanba wato xarumihiisii ay u dhammaystiran yihiin halka anaku aanan xarumihii dawladda aanan wax xarumo dawladeed oo aanu leenahay aanay jirin guryo kira ah aan ku jirnay guryihii kirada ah aan ku jirnayna de sanad iyo 8 bilood markii kiradii iyo nala ku yeeshay iyo de mataqaanaa laydadkii iyo korontooyinkii waxaa nala ku yeeshay de albaabada loo laabay 3 casho ka hor 3 maalmood ka hor ayaa albaabada naloo laabay guryihiina nala ka saaray si aan noqonay barakacayaal marka caqabada na haysata waxa weeye annaga ma haysano maamul back up la riixaya ma jirto annaga wax mushahaar iyo gunooyin iyo budget iyo miisaaniyad aan ku shaqeynaa ma jirto runtii wax qabada oo la taaban karo hadda waxa laga fuliyay laamiga waan ugu mahad celinaa maamulka Puntland oo aad baan de wax qabad muuqda oo aan indhaha laga qarsan karin laakiin inta wax sii raaca ma jiraan annaga ma jirto gaadiid ma lihin halka iyaga hadda gaadiidka ilaa 12 gaari bay Somaliland ku bixisay sanadkan hadda bilowga ah aynu ku jirno iyo kii hore bartamihiisii 12 gaari bay ku bixisay halka annagu aanu lugaynayno oo aanu shanta cagood dhiganayno aanu mataqaanaa de waad garanaysaa muhiimiyadu de waad garanaysaa waxa marka policy iyo siyaasad laba maamul ay isku hirdiyayaan de waa la soo fooqtamayaado waxa weeye waa la isbahdilayaado annaga run ahaantii hadda annaga booliskii iyo annaga uunba hadda meesha joogna waxaan ku itaalnay haddaanu nahay degmada Taleex waxaan bulshadeeda 2 qol oo saldhigii degmada ah aanu dhisanay way jirtaa iyo daaradoodii waa ka shacab ahaan aanu dhisanay laakiin xarun dawladeed oo Taleex ka jirta oo maamulku uu dhisay ama hadda aanu sugaynay ma jirto kuwii tirada aan ugu jirnayna waa nala ka saar marka waxa leedahay dhinacii fiditaanka Somaliland ba ku soo fidaysa oo Puntland dhinaca maamul daadejinta oo kale waa looga awood sareeyaa de waa ma qari karayo sababtoo haddaan qariyo oo aan ka aamuso waa wax igu maqan weeye sababtoo hadda golihii deegaanka xataa waa leela dhisi waayey boqolada deegaanka waa taqaanaa waa la bushkareeyaa ka maamul ahaan ka shacab ahaan waa la iska kaashadaa soo maaha maamulkii golihii deegaanka bay haddeer ka qabsanayaan bisha May haddii la gaaro waxaan aaminayaa anigu sida ii muuqata haddii aan intaa ka horeysa aanan sidan wax maamulku aanu ka bedelin oo uusan ka shaqeynin xarumihii dawladda uu dhiso in xarumihii dawladda uu nala furo in gaadiidkii degmada la siiyo in moralka naloo dhiso annaga moralka noloma dhiso macnaha waxa qabtaan in muddadaasi haddii golaha deegaanka lagu dhisi waayo Puntland ay deegaanka iman weydo ka maamul ahaan la isku bilaarin waayona Somaliland uu gacanta u galayo inuu Somaliland gacanta u galayo ilaa iyo xamur iyo xuduudahana ay soconayaan oo ay degayaan laakiin rajaynta leeg awal hore ma ay qabin Somaliland ma ay qabin haddeer ayay u muuqatay markeen annaga nala arkay in aan annaga dibadda naga riixayn inaan cidina baaggaraynayn inaan mataqaanaa waxyaalihii facility aan maamul daadejin iyo degmada aan ku dhaqaajin lahayn markii ay arkeen in aan cid naga dambaysa aynay jirin nin baa wuxuu ku gabiyey wuxuu yidhi ragaan laga dambayn bay sidood noola dirireen dee annaga waxaa moodaa inaan run ahaanti cidna naga dambaynin mana aha tanna mas-uuliyaddeeda bay noqonaysaa haddii arrimaha siyaasiga ee xasaasiga ee xaaladda dhabta ah jirta ee degmada aanan ka hadlin oo aanan sheegin waxay u muuqanaysaa inaan waxa kan anigu aan la qabo anigu aan Somaliland waayahay gudoomiyihii degmada tahay caqabadahaas sheegtay guri kiraa inaad degan tahay baad sheegtay laga saaray waxa soo dhibaato ah haddii aad arkaysay maxaad isku xasili weyday maxaa haddii aad dawladii u sheegtay oo waxba laga qaban waayay maxaad isku xasili weyday والله إن هذا جعل وحوي عرضة إيو حماشها عن أقبو شمال اللان يعذو وكان نحيسته إيو إذ عن أكواي أو إيغا طوبون
oo aan hadda mataqaanaa iga firfircoon oo iga fara dhuuban ama nimanka kan iska celin karaysa markaan arki waayey ayaan waxaan idhi ma lacag baa deegaankaaga iyo dalkaaga miyaad u shaqaynaysay miya waddankaaga miyaa lagugu laaluushayey laakiin haddii anigu haddeer waxqabadkii koowaad ee aan degmada ugu soo hininigay ama aan maamulkiisa puntland ugu soo istaagay baa waxay ahayd laamiga ay dhisteen aniga iyay waxbaba isiin hadday rabaan laakiin haykalkii maamul iyo dowladnimo inay ka muuqato meeshii ayaan rabay haddana waxa weeye rajadu aad iyo aad uma fiicna raallina kama nihin in annaka oo soo taagtaagan oo indhaha iyaga shan yihiin in aan arkayo doontii oo sii degaysa ilaa ii muuqanayso dad badan iyo ummaddii iyo khalqigii iyo doontii saaran oo sii degaya ayaa ii muuqda aad baan uga murugaysanaya waayahay haddii aad arrimahaasoo dhan ka sheekaysay dowladda u gudbistay maxaa jawaaba oo ka haysaa wallaahi inaanan anigu haddeer wax jawaab oo rasmi ah oo aan ka hayaa aanay jirinin aadna waan uga mooral xumahay in ay arrintani nagu sii socoto oo arrinta tan aad iyo aad bay mid ii dhibasa tahay dee waxay noqonaysaa inaan deegaankayagii iyo dhulkii aan u dhalannay aan uga cararno shisheeye iyo huunno iyo dad ka yimi hargeysa laga soo ururiyo dixri ah in maanta aan sidaa anoo aan deegaankaygii jooga aan uga calacalayo oo mataqaanaa tawaawacayga dee aan idaacadda uga baxayso wallahi aad baan uga xumaayey bilaahi watallaahi waxaanba kuba siganay in aan hadda waxayba taagan tahay sidii dadkii isqarxin jiray dee inaanuba iskuba qarxinno mooyaane dee cid naga dambaysa annagu ma garanayno waxyaalahaasina waa waxyaalaha deegaanada iyada kale lagu soo qabsaday nin mooralka loo soo dhisayo iyo nin mooralka laga dilayo hadhowna lagugu caayo la odhanayo ee dalkiisii buu iibsaday ma fahmaysaa degmada taleex imise tuula ayaa hoos yimaada waxaa hoos yimaadaa degmada taleex 720 tuulaa hoos yimaada puntland intee ka xukuntaa intaba waanu xukunaa oo maamulka iyaga iyo wax qaybsiga iyo mataqaanaa deeqaha caalamiga iyo waa gaadhaa laakiin maamul daadejin dee degmadii gabowday baan maamul daadejintu aysan ka socone intaba puntland waa tagtaa waanu la gaarsiinay de intaa haddaa xukuntaan maxaa cashuur inta looga ururin waayo deegaanka isku tashan waaye ka maamul ahaan idinka intaad dowladda waxay u baahan yihiin waxyigelin aad u dheeraad ah bulshada oo lagu soo wareego deegaanada oo lala soo shiro odayaasha iyo ildarista iyo dhalinyarada aqoon-yahanada ah oo mataqaanaa la abuuro shucuubo dhalinyaro oo mataqaanaa dadka wax fahansiiya taasina walaal waxay rabtaa ku soo meerid iyo gaadiid aad haysatid iyo kharash aad mataqaanaa dee intaa ku maraysid laakiin cashuur dee markiiba jur yar layskaga bilaabi karo dadka 30 sannadood aad dareemaysid 30 sannadood dadka inay ku jireen hoos burbur oo qaarkoodba aanay ku dhalanba cashuuro laga qaadayo aysan laba qabsan waxay u baahan tahay barnaamij iyo in la geliyo investment bay rabtaa marka investmentkaasna waa ku guulaysan weyne run ahaantii waaya somaliland marka maxaa u sahlay in halkaas saas ugu soo bilaaris waxaa u sahlay somaliland waa dad iyagu dhulka gadanayo lacag dhaafsanaya oo wata calooshood u shaqaystayaal ma garatay laakiin dadka deegaanka taageersan Soomaha qaarkood oo idinka asal ahaan xataa markaan ku sheego boqolkiiba waxaan oran karayaa markaan runta ka hadlo aanan bilin sheegin boqolkiiba 90 dadku waa Puntlanderin oo ay raacsan yihiin Puntland ay raacsan waa xaqiiqada dhabta ee jirta markaan ku sheego laakiin dadka indhahooda dhalanteedka ayaa dadka wax bedela annaka waxayna dhahaan horta idinkoo kaba halaydiin soo geliyo meesha intaad anaga naleedihiin idinka kaba soo gashado xarumihii dowladda iyo xafiisyo laydinku yimaado iyo nidaamkii dowladda hashitay dee haydinka muuqdo sida nimanka waaya ugu dambeyntii baaqaaga oo aad u diraysid madaxweynaha Puntland ku-xigeenkiisa iyo golayaasha dowladda baarlamaanka muxuu yahay waxaan u dirayaa dhammaantood waan salaamayaa marka ugu horreysa waana uu mataqaanaa waxaana ku boorinayaa in loo eego arrinta taleex siyaasadda somaliland ay ka damacsan tahay anigu ma rabo taleex anoo arkaya inaan taleex ay dhimato anoo arkayo indhahaan ku haya taleex inay dhimato ma rabo idinkuna intaasaad u jirtaan waxaan leenahay marka macnaha inay may haddii la gaaro bisha may haddii la gaaro aana sidan arrimaha kan hadda xasaasiga iyo arrimaha xasaasiga ee jira madaxweynaha waxaan leeyahay xaaladda dhabta ah ee taleex ka jirta baan anigu ka hadlay macnaha waxa ula jeedaa inay Somaliland gacanta Puntland ay ka baxdo ee Somaliland gashay ula jeedaa miya
وإنay bisha May hadday gaadho golaha deegaanka meel haddii gola deegaan laga dhisto magaciisiyo maxay adiga kula tahay waa maamul meesha ka jira oo shaqeynaya hay'adaha iyo caalamigu ay u ixtiraafayaan Soomaha iyo mashaariic ka socon doonta degmooyinka laga fuliyo de waa sida weey waxaan leeyahay marka madaxweyne aniga waxaad ii xilsaaratay degmadaad ii xilsaaratay way soo gaari kari weynay wax badan baa inoo dhaxeeya madaxweyne waxaan leeyahay xaaladda xasaasiga dhabta ah ee taleex ee ka jirta waa taa bisha May haddii ay sida wax ku sii socdaan oo ay nala gaadhana waxaan sheegayaa inay gacanteeda ka baxso taleex Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga afar gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.